sida waxa uu dhacay haddaan kuu sheego waxa weeye salaadii maqrib markii soo dhawaatay afurka isagoo soo weyse qaatay ayaa laba nin oo banaanka joogta u yeertay meeshii hawsha ka socotay markuu banaanka usoo baxay isagoo la hadlaaya ayaa niman hubaysan yimaadeen oo bastoolada wata ninkii koowaad marka xabadii waa ay ka tibtay oo waa u dhici weysay kadib labadooda diriraya ayaa nin dambe gadaal kaga yimid oo halkaas bay xabadda gadaal kaga dhuftay in dhowr xabadood ah ayay ku dhufteen meesha ayuu ku dhacay cabaar ayuu meeshii yiilay asagoo weli nool oo laakiin naf yar oo xaraaruga ay ku dambayso cid qaadana waa uu waayey xaruntii dadka joogay ee maamooyinkii wax loo qaybinayay iyo howlwadanadii kalena waa lagu kala cararay marka nimanku dib bay xitaa ugu soo laabteen si ay u hubiyaan iyagoo meyd garaacay oo xabad kale ku dhuftay isagoo meesha yaala marka walaal waa loo dhawaa waayey oo cid qaada waa la awoodi waayey ilaa markii dambe ay xaqiijiyeen inuu naf baxay ayagu ay ka tageen kadibna ay yimaadaan ciidamada dawladda oo ay qaadeen sidaasay marka wax u dhaceen oo waxa weeye dhibaatada ay usoo gaartay atooraha badda marka arrin argagax iyo murug badan weeye xilli afuraha baa la joogay waxa weeye nin maanta oo dhan soomanaa 10kii bishii ramadaan u dambeysay bay ahayd waxa uu ku jirana ma ahayn waxa weeye wax ciyaaraha ummad masaakiin ah waxa weeye iska dhiban oo danyara ayuu u qaybinayay wixii ay ku afuri lahaayeen cunto iyo raashin oo maamooyin waxa weeye iska danyara ah atooraha baddana waxa weeye waaba lagu yiqiin waayahan dambe in waxa weeye ummadda waxa weeye isaga uu kalkaalo ama uu gargaaro hadda waxa dilayna marka gacan ka xaq daran oo waxa weeye xilligaas dishay weeye oo dhibaatada u geysatay sidaas ayayna wax u dhaceen marka sidaas ayay wax u dhaceen waa maasantaa walaal